xildhibaan maxamed ibraahim macalimuh ayaa waxa uu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in ay gurmad caafimaad oo degdeg ah u fidiso dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarka hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. Bushra Bashiir ayaa warkan faafahinaysa. maxamed ibraahim macalimuh oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka wuxuu ka hadlay xaaladda dad dhaawacyo ka soo gaaray weerarkii hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. xildhibaanka ayaa sheegay in dadka dhaawacyada soo gaaray qaarkood ay aad u liitaan xaaladoodana dalka wax looga qaban karin. waxa uuna dowladdu ugu baaqay in dadkaasi gargaar caafimaad loo fidiyo. subax wanaagsan waxaan ku sugannahay xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo maanta uu ka dhacayo kulan looga hadlayo doorashada gudoomiyaasha gudiyada baarlamaanka. arrintaasaan maaragtay halkan u joognaa oo runtii aad muhiim u ah. waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar aan ka hadlo dhacdadii hotelka Xayaat ee shalay ka dhacday halkaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen. dadkii Soomaaliyeed ee dhintay dhammaantoodba xalay qaar ayaa la aasay, qaar kalena saaka ayaa aaskoodii oo frinjeerada ku jiray la aasay. xaaladooduna maaragtay dadkii kale ee dhaawac ahaana xaaladoodu qaar baa ay wanaagsan tahay, soo wanaagsanaato dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen, qaarna weli xaaladoodu